taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Maxamed Tahliil Biixi Sharif Larwaax iyo saraakiil hogaaminayo ayaa gaaray degmada Garbaharre ee gobolka Gado. Ujeedka safarka taliyaha ayaa ahaa sidii uu kuurgali lahaa xaaladda dhabta ah ee taliska guutada tobnaad ee qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Generaal Maxamed Tahliil Biixi iyo saraakiishan uu hogaaminayay ayaa kormeer kadib waxay la hadleen ciidanka iyagoo kula dardaarmay inay laba jibaaraan shaqada ay qaranka u hayaan. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay taliyaha qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciiro oo qayb ka ahaa wafdiga taliyaha isla markaana ciidanka uu sheegay inay iskaashan doonaan iyaga iyo qaybta 6aad si ay u guuleystaan cadawga al-shabaab. idinkoo markii hore ka tirsanaa jiray qaybta 6aad inaan idinla kulno derisna waa nahay waxaa loo baahan yahay qaybta 6aad iyo idinka inaad iskaashi samaysaan dagaal oo lagala diriro nabadiidka dhibaataynta shacabkeena ay ku hayaan arrintaas waan soo dhaweynaynaa idinkana waxaa laydinka rabaa inaad muxuu ahaa u diyaar garowdaan annagana isku furno wadooyinka noo dhexeeya labada gobol. ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka dhulka Generaal Maxamed Tahliil Biixi Sharif Larwaax oo uu sheegay ciidanka inay cadawga al-shabaab ka dulqaadaan dadka shacabka aan waxba galabsan waxaana ka mid ah hadaladii taliyaha. arrintaas xaq ma aha shacabka Soomaaliyeed adinka u dhaartay adinka la rabaa inaad kuwa ka xoreysaan kuwaasu ummadda Soomaaliyeed nolol uma ogola mashaki baa idinkaga jira inaysan nolol u ogolayn waxaa laydinka rabaa laga bilaabo saacadan banduulaha guutada maqlay ciidankaanu heegan inuu galo waxa fasax ka maqan oo ay soo xaroodaan dhammaanna heegan la galo loo diyaar garoobo waajibaad qaran inaad iska ilaalisaan baa lahaa nimankaas sida ay idiin arkeen oo idiin gowracayaan una arka una gowraca aad baan ugu hambalyeynaya Soomaaliya ha noolaato. Shilaawa Cabdullaahi Cabdiraxmaan warbaahinta qaranka degmada Garbaharre ee gobolka Gado.